kusoo dhawaada cashirkeena maanta insha allah. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay erayo gaagaaban ama sida loo dhiso jilmada gaagaaban oo Ingiliisha. Marka dhegeysi haboon, halkan waxaa inoogu qoran symbol of action, ficilada fudud, action verbs ama ficilada fudfudud. She walked to the store. She walked to the store. She waa magacuyaal, waa ruux dumara iyada oo kale laga hadlaya. Walked socotay, she walked way socotay, to waxayna u socotay the store, bakhaarka ayay u socotay. Marka macdi she walked to the store, bakhaarka ayay iyadu u socotay. Bakhaar waa store, walked waa socdo oo waqti la soo dhaafay. Sheena waa magacuyaal oo ah qofkii socday oo dumara. He ran to catch the bus. He waa magacuyaal isagoo kaleetay noqonaysaa. Isaga waa u orday to catch si uu u qabsado ama u gaadho the bus. Bus waa baska caadiga, gaadhiga la raaco inta badan. Catch waa qabasho. Gaadhidna way noqon kartaa, qabashana way noqon kartaa. Xilli la joogaa. He ran to catch the bus. Wuxuu u ordayay inuu gaadho ama qabsado baska si uuna uga tagin. The cat chased the mouse. The cat chased the mouse. Mouse caadi waaye. Cat waa yaanyuur. Chased waa caydhshaso ama wax la caydhsado ama la buriyo oo kale. Mouse waa baash, waa jiirka xawayaan la-eg oon laga garanaynin oo inta badan miyiga ku nool. wala sandheer aan waqaanaani dabcan jiirka unbayna u eg tahay, lagama garanayo inta badan. The cat yaanyuurti chased way caydhsatay the mouse, waladii way caydhsatay ama jiirkii ayay caydhsatay. She ayadu cooked way karisay dinner waa casho. Dinner cooked waa ficil lasoo dhaafay oo ay caddaynayaan labadani. She cooked the dinner for her family. Cuntay karisay ama cashay diyaarisay for her family, qoyskeeda ayayna u diyaarisay. She wrote, she ayadu wrote waxay qortay a letter, warqad to her parents, waalidkeeda ayay u qortay. She wrote a letter, haddaan dhaho warqad ayay qortay ayay noqonaysaa, waa sax. She ayadu wrote, right oo past ah waaye, xilli lasoo dhaafay oo qortay camal waaye. She wrote waxay qortay a letter, warqad to her parents, waalidkeed oo aabihi hooyadii ah ayay u qortay. He drove wuu kaxeeyey ama wuu waday to work every day. Wuxuu waday nalooma sheegin ninkan, ma gaadhiba ma xoolaa, lama sheegin wuxuu waday. He drove wuu kaxeeyey, mar hore ayuu kaxeeyey to work si uu u shaqeeyo every day, maalin walba suu u shaqeeyo. Waxaa ka dhiganaynaa marka he drove a car. Gaadhi ayaan gashanaynaa inagu meesha. He drove a car, wuu kaxeeyey to work si uu u shaqeeyo every day, maalin walba si uu u shaqeeyo. Wuu kaxeeyey si uu gaadhiga si uu maalin walba u shaqeeyo. The children waa ciyaal, labo iyo wixii ka badan. Child haddii la dhaho waxaa intanaa laga reebi. Child dhiiday ku eg tahay intan. The children ciyaalkii played way ciyaareen in the field, garoonka ama bannaanka ayay ku ciyaareen. Field waa bannaan. He asagu painted waa rinjiyeyn. Ereygan painted waa rinjiyeyn, wuu rinjiyeeyey. He painted a beautiful landscape. Muuqaal qurux badan ayuu rinjiyeyntiisii ku sameeyey camal. He painted a beautiful landscape. Tusaale, derbiyada kolkii lagu sawiro waxaad buura iyo dhul iyo landscape waa muuqaal dhul loo ekaysiiyey. Landscape. He worked wuu shaqeeyey. He worked hard, aad ayuu u shaqeeyey. Hard waa aad inuu u shaqeeyo. To finish si uu u bogo the project, mashruucan si uu u bogo shaqo adag ayuu qabtay. Mashruuc inagu keli waxaan u naqaanaa waxay hay'aduhu wataan, ma aha waxbarashadaada aad galaaska koowaad ka bilowday ilaa heer jaamacadeed waa mashruuc.
qorshe kuu soo baxay oo rabta shaqo inaad maanta qabsato waa mashruuc. Shaqo kastood qabsato oo qabatood meel ka bilaato meel ku dhamaata waa mashruuc. He worked hard. Aad ayuu u shaqeeyay ama si adag ayuu u shaqeeyay to finish si uu bogo the project mashruuca si uu soo gabagabeeyay. Si adag buu u shaqeeyay. The dog ay waay dog. The dog aygii. Haddaad aragto waa wax la isla garanayo. The dog aygii barked waa qayliyay. waa codka uu sameeyo aygu. At the stranger mostly ama inta badan ayga carbisani kolka xaafadda qof qalad soo galo ama qof cusub soo galo wuu qayliyaa. The dog aygii barked waa ciyay ama waa qayliyay. At the stranger wuxuuna ku ciinayay qofka cusub ee xaafadda soo galay. Qof cusub baa xaafadda imaaday ayuu bilaabay. We read waan akhrinay a good books last night. We anagu read waan akhrinay a good books. Book fiican ama book fiican ayaan akhrinay last night habeenkii xalay ah. Book fiican ayaan akhrinay. She shopped for grocery at the market. She ayadu shopped waa shopkii adeeg waaye. She shopped way soo adeegatay for grocery waxaa la dhahaa cuntada, adeega guriga loo soo qaado, raashinka, hilibka, qudaarta, noocyada kala duwan. Grocery waa adeega raashinka iyo hilibka iyo cuntooyinka guriga loo soo adeego. At the market waxay ka soo adeegatay ama ay soo adeegatay grocery cuntooyin kala duwan. Xagee ka soo adeegatay? At the market. Shop haddii la yidhaaho waxay noqon dukaan. Shopping haddii la yidhaahdana adeegashay noqon. Shoppedna adeegtay waaye. Market waa suuq. Grocery waa meesha raashinka kala duwan aan ku celiyo waa raashinka kala duwan ee guriga loo soo adeego. hal mar aan ku noqono. She walked to the store. Waxay u socotay mar hore socotay. She walked waxay u socotay to the store. Bakhaarka ayay u socotay. He ran waa uu orday to catch si uu u qabto ama u gaadho the bus. Baska si uu u gaadho ayuu u ordayay. Sababtoo ah ka soo baxay guriga dabcan meesha gaadhigu basku istaagu u socday intuusan kaa tagin orod ku gaadhayo isdhahay. They danced. Dance waa qoobka ciyaar. Dad baa kolka xafladaha la qabanayo music intay shitaan ayay qoobka ciyaaraan ama ay ciyaaraan ama ay damaashaadaan. They danced way ciyaareen ama way qoobka ciyaareen to the music. Music ay shiteen codkii musiga ayagoo la qaadaya ay qoobka ciyaar sameeyeen. The cat yaanyuurtii jeesed way caydsatay the mouse jiirkii ama waladii. She cooked way karisay dinner casho for her husband. She cooked dinner for her husband, for her family. Casho ayay karisay waxayna u karisay reerkeeda. She wrote a letter. Warqad ayay qortay to her parents. Hooyadeedii aabaheed ayay warqad u qortay. He drove wuu kaxeeyey the car gaadhiga to work si uu u shaqeeyo every day. Maalin walba si uu u shaqeeyo ayuu gaadhiga u kaxeeyaa. The children ciyaalku played way ciyaareen in the valley banaanka ama garoonka kore ayay kusoo ciyaareen. He asagu painted a beautiful landscape. Wuxuu sawiray muuqaal qurux badan oo dhul loo ekaysiiyey. He worked wuu shaqeeyay hard si adag ayuu u shaqeeyay to finish si uu bogo the project mashruuca si uu bogo shaqo adag ayuu qabtay. The dog aygii barked waa uu ciyay at the stranger wuxuuna ku ciyay qofkii cusbaa ee xaafadda ku cusbaa ay soo galay. We read waan akhrinay a good books. Book fiican waa hal book last night habeenkii xalay ah. She shopped way soo adeegatay for grocery cuntooyin kala duwan at the market ayay suuqa ka soo adeegatay. Intaas ayaan ku daynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.